ogeysiis hadda way fududahay inaad barato xirfado kala duwan oo caafimaad ah. jaamacadda Rajab Tayyip Erdogan ee kuliyadda cilmiga caafimaadka waxaa ka bilaabanaya kuliyadaha kala anesthesia iyo radiology iyadoo horey u bixin jirtay kuliyadaha nursing iyo midwifery. jaamacadda cilmiga caafimaadka waa jaamacaddii ugu horeysay ee laga leeyahay wadanka Turkiga oo laga hirgeliyo gudaha Soomaaliya gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. jaamacadda waxaa ka qalin jebisay 3 dufcadood oo dibloma iyo 1 dufcadood oo bachelor iyagoo la baray xirfadaha caafimaadka ee baahida ugu weyn wadanku uu qabo. jaamacadda habka ay casharada u bixiso waa hab caalami ah oo dunida dhan laga aqoonsan yahay. jaamacadda sidoo kale waxay heshiisyo badan la leedahay hay'adaha caalamiga ah. jaamacadda hal mar ayay arday qaadataa sanad dugsiyeedkii waxayna ardayda ka qaadaa imtixaan qabuula. ardayga ku soo baasa ayaana jaamacadda loo qaataa. sanadka koowaad ardayga waxaa si fiican loo baraa luqadda Turkishka maadaama jaamacadda ay luqadda ay ku baxayso ay tahay Turkish. jaamacadda waxaa macallimiin Turkiga laga soo diray iyo macallimiin Soomaaliya isla markaana ardayga waxaa baraatikada uu ku qaadan doonaa isbitaalka tababarka cilmi baarista ee Rajab Tayyip Erdogan Digfaar. jaamacadda waxay sanadkan soo kordhisay ardayda ka qalin jebisa jaamacadda waxay heli doonaan master degree iyagoo wadankooda jooga. isdiiwaangelinta waxay ka socotaa xarunta jaamacadda oo ku dhex taalo isbitaalka tababarka cilmi baarista ee Rajab Tayyip Erdogan Digfaar. horey u gaar waxbarasho caalami ah oo tayeysan, samee doorasho sax ah oo mustaqbal caafimaad leh.